labo ka mid ah dhalinyaradii kula kulmay markii uu shilkaasi dhacay ayaa waxaan ka waraystay bal qaabkii u dhacay shilkaasi iyo sidoo kale xilliga uu dhacay. shalay gelinkii dambe abaar adigu 4 iyo xoogaa markii saacadu mareysay ayuu shilkaas ka dhacay Daarbudug xageeda galbeed gaari fitisabo hayo cadaana oo xagga Hargeysa ka yimi oo xagga Berbera u socda anagoo xagga Berbera ka nimi oo xagga Hargeysa soo socono shilka la kulanay dhammaan gaadiidkii meesha marayo dhan gaadiidku ugu soo horreeyay baan hayno soo istaaga waanu ku wada degnay shil aad u khatar ah hayo si xun gaarigaas u dhacay gaariga waxa fitistaa saarneyd 4 qof oo midiinan tahay 4 qof dhaawac bay haayeen markii la soo qaaday 3 qof serious ahayo dhaawacoodu aad u cuslaa oo inantu ku jirto darawalku ma ugu sahlanaa dhaawacaas oo isagu dhaawaciisu uu sida 4 qof kale la saarnaa uu dhaamay gaarigaas wadadu ka duulay dhowr jeer buu isrogay markii dambe geed buu ku dhacay markuu geedka ku dhacay inantaas ka duushay oo inantaas meel 2 talaabo u jirta ayay dhaawaceedu iyada yaalay madaxay dhulka ku dhufatay oo gaariga la raftay marka sidaas walaal shilku u dhacay dhaawacoodina waxaan filayaa kulli xagga Hargeysa markii dambe loo soo qaaday kulli wadadu aad bay u samaysantay waa wado qurux badan oo imika farta laga qaaday wadayaasha gaadiidkuna kulli mas'uuliyad inay saaraan oo ay taxadir badan muujiyaan oo gaadiidku markuu xawaaraha inta la ku socdo xoolaha ka hor iman kara gawaadhi wadada qaladka hordaysa ka hor iman karta wax kasta way dhici karaan kulli inay taxadir far badan ku daraan baa muhiimad weeye oo ay aad u taxadiraan kulli ilaahay baa la kaashaday ilaahay baa ilaaliya laakiin hadana xawaaraha inta la markaad ku socoto inaad taxadirkeeda yeelato oo aad u feejignaato baa wanaagsan marka walaal shilkaas saas u dhacay goobjoogayaashii markiiba la kulmay shilkaas goobta kula kulmay waan ahayn markii dambe xalay waxaan loo sheegay inaan geeriyootay dhaawaca inta dhaawacantay waxaan leenahay ilaahay caafiyo inanta dhimatay ilaahay u naxariisto ilaahayna ehelkiidii qaraabadeedii dadkii ay ka baxdeen samiriye imana ka siiyo anaguna shilka xilligaas aan la kulannay oo saasaanu adigu gaadhigii burburkiisii taayirkii gaadhiga ku yeedhin muraayadii ku yeedhin gaadhigu in badan buu isrogay inantu way ka duusho ilaa toobkii ay xidhnayd ilaa sharabaadada ay xidhnayd ilaa timaheedii wixiiba meesha yaaleen marka dhaawac aad u culus oo miisaankiisa leh oo shil aad u fool xun buu ahaa dadkii meesha marayeen dhammaan ku cimri qaadashay iyo argagax ugu filnaa kulli dokumentigii gaadhiga ku dhex jiray gaadhiga darawladii wixii ugu jiray oo dhan markii dambe gaadhi xagga dhayna xagga Hargeysa ka yimi xagga Berbera socda nin askari oo boolis oo la socnaa ilaa traffic markii dambe u yimaadeen marka ninka askariga baa dokumentigii iyo wixii ururinayo bacweyn oo bacahan waaweyn raashinka ku gurayay oo ugu gurayeen qolada gaadhiga dhaawaceedii iyo meydkoodii la qaaday marka dokumentigoodii iyo waxa iyaga guraya ayaan anagu ka nimi trafficna joogo ninka alaabta ugu gurayna boolis ahaa marka ilaahay u naxariisay intii ku dhimatay inta dhaawacay maanta jiiftana waxaan leenahay ilaahay caafimaad taamaha siiyo